بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan maanta halkan jecelahay inaanu ka hambalyeeno shacbiga reer Somaliland meel kasta ay joogaanba qurba joog iyo gudaha joogba waxaan leenahay hambaliyo ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'aala ilaahayga calankeena inoo soo celiyay ilaahayga subxaanahu wa ta'aala nabadda inoo mutaysay ilaahay subxaanahu wa ta'aala doorashooyinka inoo sahlay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan maanta adduunku haysan in siiyay oo nabad ah taaj ilaahay na siiyay waxaan leeyahay shacbiga reer Somaliland waxa la helo oo weyn wax jira waxa weeye waa talada qaranka dalkaaga ma tageysid maanta talada dalkeena ayaan sodonka sano haysan subxaanahu wa ta'aala ilaahay ma daway maalintii nime dadka la xoreeyay waa ogeydeen si magaalooyinkeena ahaayeen ilaa Ergaabo ilaa Gabil way dunsanaayeen maanta wada aragtay alxamdulillah rabbil caalamiin hal iskuul ma jirin waxay noo baxsaday ma jirin xabaalo ma helay xabaaliga guri gubay iyo mass graves xabaalo wadareed ayaan dhaxal ash baan ka soo sameeyay ash ayaan ka soo sameeyay Somaliland maanta wada aragtay 16 jaamacad baan leeyahay alxamdulillah rabbil caalamiin oo waliba jaamacadaha ugu fiican maanta ardaydeenu markay soo baxaan wankay galaan ama Pakistan ha tageen ama Ethiopia ha tageen ama wankay galaan maanta waxaan leenahay oo sameynay 6 doorasho tii 5 hore iyo tii 6 maanta waxaan taa ku helay in maanta geeska aan ku noolnahay aynahay wadanka ugu dumarayda badan leh ayay marka waxa soo jeedinaysan ay xisaabta ku dareen inaynu qarannimadeena gacanta ku hayso qarannimada wax loo dhigaa ma jiro marka waxaan kale adduunka ilaahay ma dhameyn marba in baynu dhisinaa marba marka waxa leeyahay dalkiina iimaansada dhalinyarta 700 baa tihiin waxaa ku cilbaxaysaan idinka dalka mustaqbalkiisa gacanta ku haysa waxa weeye waa maalinta codka bixinaysa doorashada maanta gelino waxaan ka codsanayaa dhalinyartiina haween dhalinyaro yaragba inay codkiina aanay ku siinin reer hebel ah ku siisaan wariyaha wax qabanaya ilaahay ka baqaya amaanada xijinaya ayaa la ka baqaya subhanahu wa ta'ala marka waxa leeyahay dhalinyarta aniga jabina qabiyaalada iska daaya qabiyaalada qaran ma dhisto state baa u baahantiin state reer ma dhiso ummad baa dhisa waxaan ku jirnaa nation building institution building baan ku jirnaa doorashada markay noo dhamaatana dalkan reform ku sameeyna insha Allah ta'ala reform ku sameeyna dib aynu eegna distorka insha Allah ta'ala dib aynu eegna wixii public service ka hay wada private laga dhigay caafimaadka dib aynu eegna insha Allah ta'ala coronavirus wada aan leeyahay geer baa dib aynu eegna biyaha dib aynu eegna monopoly ma jiriso maanta adduunka inaga la qaadaysa haqaateene haday wax nidaam ba sameeynaya aragti bilahay taagan caafimaadka inaga caafimaadba u qaalisan qofka dumar maanta ala laga soo saarayo 650 inay qadinta regulations ma jiro baarlamaanka soo socda insha Allah ta'ala waxaan sameyn doonaa baarlamaan wanaagsan magaaladeena gudaafad ayaa noqotay caasimadeena waxaasna waa hawl inoo taala waxaan ka bixinaa inaan yeelno waxaan wada leenahay waa qaranka ayaan wada leenahay qaranka kaas naga dhaxeeya cid gaar leh ma jiro maamulku uu tagaya laakiin qaranku tagi maayo waxaan leenahay waa waydiin soo ducaynaa ilaahay cudurkana naga qaado subhanahu wa ta'ala ilaahay raxmaadka inoo keenaa shukr u badino wassalaamu calaykum nabadku ciida nabadku sahal assalaamu calaykum شعب سومالي أمريكا تسمي شو وحلا ليه؟ إنك هاي أنت أصلا أنت أصلا الدنيا. ده واحد من الدويش وين ثاني؟ أنت لا بدك توصل تصير وربنا فرصة. أنت هم بدي أدور نقول. حاجة هروب حاجة هروب.